wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya in ciidamada booliska Soomaaliland ay xabsiga dhigeen Isniintii la soo dhaafay gabar taageertay dawladda Iiraan. Gabadhan oo muujisay sida ay u taageersan tahay dawladda Iiraan iyadoo dhaleecaysay dawladda Mareykanka iyo maamulka Yuhuudda oo xiriir aan wanaagsanayn uu kala dhaxeeyo dawladda Iiraan. Toddobaadkii hore waxaa taagnaa xiisada u dhaxaysa dawladda Mareykanka iyo Iiraan, waxaana gabadhan ciidamada Soomaaliland ay xireen xilligaasi iyada oo ka hadashay aragtideeda iyo taageerada ay la garab istaagtay dawladda Iiraan. baraha bulshadu ay adeegsadaan dadka ku sugan Soomaaliland ayaa waxaa qabsaday dooda ka dhalatay xariga haweeneydan, waxaana la ogeyn sababta qof aragtidiisa cabiray xabsiga loo dhigay. Axmed Aadan Rooble oo ay walaalayihiin Safiye Aadan oo xabsiga la dhigay ayaa sheegay in ay la yaab ku noqotay markii ay maqleen walaashood oo ka hadashay arrimo ka duwan kuwa gudaha Soomaaliland in xabsiga la dhigay. Wuxuu sidoo kale sheegay in walaashood Safiye mar ay ka xanuunsatay maskaxda, balse markii la xirayay ay ahayd hooyo caruurteeda la joogta. Safiye Aadan Rooble ayaa axadii ka soo muuqatay warbaahinta Soomaaliland iyadoo shir jaraa'id ku qabatay Hargeysa, waxayna xilligaasi ahayd qof xiran niqaab.